السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد walaalahey meel kastoo aad joogtaan saaxiibaday qaali ah franskay familkayga inta magacayga muuqayga taqaana inta aad iyo aad supportka ii siisa oo barnaamijyadayda runtii igu dhiirigelisa iyo qaar kaloo badan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaashii nasteexa samafale ama nasteexa wadani ama hooyada gabadha calanka marba ka ila jeclaataan laakiin magacan dambe runtii oo nasteexa samafale ugu dambeysay dad baa waxay arkeen sidaan dadka maaragtay waxay ugu yidhahdeen dadkaad caawisaa waxay yidhahdeen nasteexooy maxay ahayd toy xataa dhalinyarada markaan la sheekaysto markii aan si fiican u sheekaysano oo xagga qabyaaladda aan maaragta ka waaniyo xagga maaragtay midabta koorka ka waaniyo xagga maaragtay dhibaatooyinka iyo tarhiibka iyo wadaniyad nacaybka iyo markaan waxyaabahaas kala sheekaysto waxay dhahaan wallaahi waadna caawisaa qof samafalaha tahay marka saasaan magacaan ugu dambeeyay aan u qaatay waana aan rabaa qorana samafalo waan u ahaa hadda wixii ka dambeeyana samafal ka shaqeeya waan rabaa runtii marka sidaas awgeed samafalahaas ayaan iska qaadanayaa runtii isaga magacaas ay ugu dambeeyey waxaan leeyahay marka walaalayaal waa walaashiin oo soo salaamaysa maanta waxaan fadhiyaa gurigayga balankoogiisa maxay ahayd toy waa yaro roob baa noo da-ay waan soo yaro shaqeeyey hadda ilaa hadda xoogaa roobka uu da-aya laakiin qorax yar baa hadda soo baxday alxamdulilah rabbilcaalamiin waqti kulayl iyo waqti roob iyo adduunyaan ku jirnaa ilaahay barwaaqadiisaan ku jirnaa laakiin nimco weliba nusqaanteeda leh annagoo sidaa barwaaqo ugu jirno oo maaragtay aan waxba laga fakarayn ayaa maaragtay ilmayowgii iyo dhalinyaradii ayay maaragtay dhibaato ku jiraan laakiin waxa xun oon lama sheego waxaa jirta dhalinyaro aad iyo aad u fiican oo aan aad u wanaagsan haddaan kasoo qaado maantay markaan shaqadii ka imid waxaan kasoo adeegay dukaan baco waaweyn baa sida laba bacoodoo waaweyn baan wadi markaasaa wiil yaroo soomaaliya oo gaari wataa ayaa wuxuu yidhi habar ma ku caawiya jid dheer aan maraya asagoo jid baabuuru maraya saasuu jidka uga soo jiireynaya waxaa noo dhexaysay xoogaa dhanaa noo dhexaysay markaasaan waxaan ku dhahay habar dhown wari gurigaan dabadiisaan u socdaa maya baabuurkan baarkeerina inay sugto waay meeshiaan taagnaada waxaan ku maadaama wiilka dhalinyarada oo yarkaayo ku yidhi ilaa ku caawinaya iska sug meeshii cabaar ku sugay baabuurka intuu soo baarkariya soo ordaayo iimi bacayhiyo labada gees ku dhagay babaf oo lasoo boo dig markaas waxaan ku dhahay markuu jaranjaro lasoo koraayay waxaan ku dhahay hawareer miyaad aqoon ii leedahay mase hooyo soomaaliyeed unbaad maaragtay wallahi hooyo soomaaliyeed awgeedan ku caawiyey haye hadduu wiilka alaabta ila soo qaadayba gurigayga guri kasoo horjeeda degan yihiin way gartayba marka runtii lama oon yiraahdo maxay ahayto dhalinyaradii way naga yara maaragtay wareertay wallaahi dhalinyaro badan oo maasha allah jirta thank you very much wallaahi waa farxadeeday leedahay markaad aragta cunug soomaaliyeed oo dhisan oo maaragtay jaamacadihiisa aaday oo maasha allah marka runtii barnaamijkaygu maanta waa yara hordhici weeyaan wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada waddankan ku dhalatay iyo familada waddankan maxay ahaytoy runtii degan buu ku saabsan yahay waxaan leeyahay horta hooyooyinka don't worry hadda ka hor baa nin booliis oo isugu dhashay ayaan sheekaysanay aan dhalinyarada wax ka caawin jiray markaasuu nasteexa hooyooyinka u sheeg turjumaan camal baan ku shaqaynaya nasteexa hooyooyinka u sheeg waxaa wiilasha boqolkiiba 80 way galaan dhibaatadan yeng baa la yidhahdaa yeng to yeng marka yeng qolo group isku laayaan oo group maaragtay isku xabadeeyaan oo group wax u sameeyaan oo maaragtay u dhibaatoodaan ayuu wuxuu igu yidhi nasteex hooyooyinka u sheeg wiilashu xataa kuwa isugu dhashka oo indhabalugga ah galiyo yiri sheekadaan laakiin boqolkiiba 80 way ka soo noqdaan buu yidhi waxay soo noqdaan dad wanaagsan bay soo noqdaan marka runtii lama yiraahdo on wax xun baa wey inta xun on lama sheego Swedishka markaan la sheekaysanay waxaan ku dhahaa horta idinka kaalaya maxaad on inta yaroo isdilaysa ama inta yaroo oo jid yaroo mugdiya qaaday aad uga hadashaan waxaa badan kuwa badan oo jaamacada dhigta waxaa jira kuwa badan
oo maxay ahayto dhaqaatiir ah waxaa jira kuwa badan oo engineer ah runtii wadamada Yurubka markaan nimidna markasta ayagu waxay on sheegaan maaragtay kuma arkayaan badanaa dadka wanaagsan waxay arkayaan dadka yaryar oo sisi noqday marka wiilasha ama gabdhaha jaamacadaha ka baxay ama aad iyo aad u naxariista badan ama aad iyo aad u wanaagsan horta waa inaan aragnaa kuwa kaliya oo meelaha taagtaagan yaan la arkin kuwa xataa meelaha taagtaagan markay hooyo Soomaaliyeed arkaan wallahi halkaas ka soo ordayaan especially حتى أجنبيك كله ماشي عند جنة أنا أجنبيك كله دجن حتى للياض كله عربها إيو ضدك كله تعرض كله مركي أي أركان يمكن أركان هاي أنا because وحيل ساحبيهن المهن اللي ساحبيهن مركا واحد ربع ما أنت أنا عيره هذا للياض الصوماليات ما للياض كله ما أهان أنت يرو أما يسحب هذا أما يسد الشيء أما somehow درتي أما الدجاج الصومالي ده برضو حيل ديك بلايه حيل هذا dhiig waxay leeyahay aan caadi ahayn oo adduunka meel kasto aan tagno dagaalkaasna waxaan isleeyahay waa dhiigga Soomaalida ku jira iyo ayadoo markii horeba ilmaha la baray doqon yow iska celi warwiilka qofka iska celi doqon miyaa tahay nin fiican iska dhig waxa way wadankan wadamadan aan joognana ama wadamada Yurub ama America ama Canada hadda tii qorrax ay qabatan raaliga ahaada waxa way xoogaa qorrax yar baa soo baxday marka ma qaan si TV-gu noqon doono marka wadamada aan joogno qofka haduu dagaal galo waxa leeyahay oo qofkan waa jiran yahay somehow qof jiran waay marka waxa way dhaqankaas la soo baray iska celi dil ha soo booyin asaasay xagaje dabcan dilkaas iyo dilkaas na way jirtaa waxa kale Swedish ku yiraahdo waxa jira wax la yiraahdo maxay ahayto dhaxal hadii aabahu uu ahaa nin ama jaad cuna ama qamra caba ama sigaar caba ama wax caba ilmaha wuu ku dhalaa ilmaha waxay dhalanayaan ayagoo maaragtay somehow ayagii oo dhiigii wixii ku jiraan ayay dhalanayaan wixii aabiis ahaan jiray wiilku ahaanaya gabadhuna wixii hooyada ahaan jiray way ahaanaysaa ama marka hore ahaanaysaa ama marka dambe ahaanaysaa marka dabcan haddii adigoo daraag cuna ama daraag cuni jiray cunug aad dhasho wixii baa kugu jira waxa kaloo jira xanuun la yiraahdo Swedish ku yiraahdo ODHD waxa weeyaan waa sida ilmaha markii la fariisanayo ilmuhu ay fariisanayaan concentrationka ayaa nagu xun ilmahana ma ahan guryaha ka jiraan hooyadii waxa laga yaabaa guri inuu xasilooni ahayn oo xasiloonayn gurigii waxa laga yaabaa hooyadana telefoon maanta ku hadlayso ay xoog dheer u hadlayso aniga hadda markaas wadankan wax badan aan joogay ilaa 30 sano ku dhawaad waxaan joogay ilaa dhowr iyo 20 sano joogaa markii hore wadankan ay mid meel tuula oo Swedish ku badan yahay Soomaalidu aad ugu yartaa ayaan deganaa muddo 10 sano ayaan deganaa markii dambena waxaan soo dhex galay Soomaalida iyo dadkii bal ajnabiga ah soo dhex galay markii ay hadlayaan marka Soomaalidu iyo marka dadka Carabaha beesh ayaga laftigooda waxaan dhagaha faraha gashtaa waxaan raahdaa bismillaahir rahmaanir rahiim qayl badan bari waa ilmahayga oo dhigta xanaano dhigta ay waxay wada qoleys Swedish nasteexo ilmahaga cod dheer ku hadla markay hadlayaan waay gurigeena codkeena marka hadlaysan gaagaameys waa dheer iyo markaas aan ku dhahay dabcan waa dheer iyo codkeena waa dheer yahay guriyaha ayaan codka dheer uga hadalnaa marka aniguna waxaan bal runtii ku jiraa dadka degan aan ku jiraa dadku leeyahay waa dadka degan marka dhibaato waxaa jirta ama dhibaato ma aan dhaqan waxaa jira anaga hadal dheer ayaan leenahay waa hadal dheernahay waa mar uu telefoonkan ku qaylinaa waa hadal dheer guri xataa adiga waxa laga yaabaa la hadlayo qof inaad moodo inuu adduunka dhan la hadlayso markaas waxa leedahay wow hal hooyo haday gurigaas ka hadlayso waxa leedahay imis adduunyo qofkaas la hadlaysa qaylo badan ilmihii marka hooyadii iyo aabihii saas u qayliyahay ama hadalkoodii bay wataan dhaqankoodii bay wataan waxa laga yaabaa marka gurigii inuu leeyahay caruur badan family badan ciyaalku haddana markay bataan waxa weeyaan gurigi waxa weeye concentrationkii oo dhan baa wuxuu dhan baa socda guriga dhan baa laga socda hadalkii baa qaylaa cuntadii baa qaylaa qababa qashaca waxa jirta cuntadii baa maanta dhan faraha lagu cunayaa wixii baa miiskii iyo adduunkii iyo wixii oo dhan marka waxa laga yaabaa hooyadu inay ilmaha maxay ilmaha afka cuntada u galgaliso maanta dhan cun laq I don't know
hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa moodaa dad gaajo kusoo koray gaajana kuma soo korin caano iyo hilib iyo adduunyaan kusoo kornay laakiin waxaa moodaa hooyo Soomaaliyeed cuntadii unbaa la raaciyey cunuga waxaa laga maanta oo dhan inay cunto afka u gelgelinayso cunuga cunto cunugiiba waxaa laga yaabaa concentrationkiisii iyo noloshiisii dhammaydba inay cunto ku daldasho cunugii oo cunugii calooshiisii iyo maskaxdiisii iyo noloshiisiiba inay cunto ka dhigto islaantii cunugii marka wuxuu isku nacayaa waalkii iyo hooyadii iyo cuntadii iyo gurigiiba isku nacaya waxa weeye marka gurigii oo dhan baa jaam ah gurigii oo dhan baa qaylaa gurigii oo dhan baa maxaa ka yeerahaya sawaxan ilmihii baa boodahaya oo dhacaya beri baan ayaan live fadhiyaa waan ku dhahay wareedha hooyooyinka Soomaaliyeed waxaa aqalkooda waa jajaban yahay because ilmihii baa ku boodaya wixii waa jajaban markaas waxaad garay saaxiibada inta soo wacay nasteexoy walaal ma gurigayga ka hadlaysaa oo aragtay tiri waxay waxba uu jajaban bay tiri ilaa waxay tiri miiska waa jaban yahay wixii waa jaban yihiin marka runtii ilmaha waxa weeye concentrationka ayaa ka xun wuxuuna guriguna kala yimid waalidku kala yimid ma ahan ilmo waxay keensadeen marka waxaa kaloo jirta waxyaabo adduunka nooga hormaray hadalkaas gaagaaban xoogaa balaankii cunugu inaad balaan u dhisto tiraahdo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa xitaa markay cuntada sida loo cunayo cunuga aad barto asaga aad siiso horta aabad siisaba mas-uuliyadda ilmaha inaad wax ka siiso hooyo Soomaaliyeed cunugan mas-uuliyad ma siinayso cuntada bay afka u gelinaysaa mas-uuliyad kuma haysto wixii ay kariso cunuga kala tashan mayso mas-uuliyad ma siinayso wax aqrisanayo cunuga mas-uuliyad ma siinayso maanta oo dhan way qayliyaysaa banaanka hadduu aado maanta oo dhan balalalalala waxaad leedahay bas hadday fuushay ama tag ama ay fuushan yihiin tareen qof Soomaaliya ilmo wata hadduu saaran yahay ummadda dhan waa laga garanaya because way celinaysaa haseelinsaas taasaa ka dhici waxaasaa samayni cunuga marka waxa way kalsoonida dhan baa ka dhumaysa cunugii wax uu asaga uu maarka mas-uuliyadda uu leeyahay ma jirtaba al hooyadii baa mas-uuliyadda mid la wareegta ama aabihii baa Allah ka dhigo mas-uuliyaddiis cunug waa la haystaa waa qof la haysto maskaxdiisii la haysto weeyaan markaas wuxuu isku dayayaa cunugaas inuu maaragtay waxaas uu ka yara baxo oo asagu isku maaragtay hadhow maya waxaas ma yeelahayo cunug Soomaaliyeed arkaysaa ma yeelahayo ma ka dhacayo ma ka wariya marka waxa weeyaan runtii ilmaha walaa hooyooyinka Soomaaliyeed waa inaad mas-uuliyadda wax ka siisaan waa inaad cunuga marba asagoo qaldan aad tiraahdaa okay saas markuu wixii sameeyo cunug horta qofaan waxba sameyn muxuu qaldan muxuu saxaa markuu wax qaldan inaad tiraahdo okay sidaan waxa ka fiicnaa adoo sidaan yiraahdo qasayro waxaa jirta maalin aan rabo inaan la qaybsado bulshada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed tareen baan waxaan ka soo raacay magaalada Tonka waxaan ka soo raacay magaalada dhexaan ka soo raacay centerka waxaan ka soo raacay tareenkii aan la socday nin Swedish ah oo wata geedkan ilmaha lagu wado baagnan baan ana laakiin waa bahal yar ilmaha la saaro saas u wadaa wuxuu wataa cunug yar iyo cunug aan isri waa 3 jir oo yar buu wataa meesha markii tareenku wuxuu leeyahay meelo oo qolqol camal ah muddo laakiin isku sii furan qol kuraas leh waa sii furanta kii kala u sii furan qol kuraas leh marka qolka saddexaad ayay fadhiyaan ninkaas iyo ilmihiisu cunug yara 3 jirka ay odagii way yara dagaaleen baan filayaa way hadleen way isla hadleen war arkaya cunugii wuu ka soo kacay odagii soo socday meesha anigu aan fadhiyay qolka anigu aan fadhiyay ayuu kursi kamid ah soo fariistay aniga waxaan leeyahay marka waan yara walwalhayaayo ilaa hooyo Soomaaliyeed baan ay moogtay dhiigii way ku jireen Allah cunuga ninku muxuu uga haray Allah ama cunug ka dhaca albaabku isfuraya meeshuu yimaadaba uu isfuraa marna uu isxiraa markuu isfurada ilmuhu waxa laga yaabaa inay ka baxaan markaasaan waxaan siri anigii baa maartay shakiyo waxaan ku iri alla cunugan yarka ninkii uu soo baxay oo meesha aan fadhino yimid cunugii buu la hadlay wuxuu iri dhageyso u dhahay aniga ma kugu qasbaaya inaad fariisato meesha aniga aan fadhiyo ya waa qolka saddexaad wuu la hadlay hoos buu la hadlay wuxuu iri aniga meesha aan fadhiyo ma kugu qasbaaya inaad fariisato adaa doortay halkan inaad fariisato laakiin waxaan kuu sheegayaa meesha heblaaya oo aan ku dagi doono waa inaad ogaataa tareenku markuu yiraahdo waa meel hebla aniga waa degahaya adigana soo deg tareenka markii laga degay meel dhaxo waxa jirta tareenka iyo meesha godka oo u dhaxaysa waa qatar baa la yiraahdaa iyagaba ka digo waxay dhahaan markaad degayso tallaabada nacam hore u qaad saad ugu dhicin meesha godka cunugii wuxuu yiri waan ogtahay sida loo dego Soomahan wuu la hadlay wuu iskaga tagay cunugii
anigii wallaahi markii baawrku meesha istaagtaba waxaa cunug ama meesha inta ka dhaca anigii baad maanta u dhasaas nacam mana la hadli karo cunugan dee waa cunug dad waxa weeye dad doortay weeyaan sheekada sidaas sidii loo soo socdo meel tareenku istaagayo isku ballaqay u kala albaab u furmaayay oo loo soo hadbal u furmaayay meeshii uu u sheegay odagu markuu marayo odagiina wuxuu ka degay meeshiisii cunugiina wuxuu ka degay meeshii qolkii aniga ayuu ka degay wuxuu u degay sidii qof weyn lugta ayuu tallaabada kor u qaaday suusa meesha lugta ugu dhicin halka ayay iska raaceen ma kula tan marka hooyo Soomaaliyeed aabba Soomaaliyeed inay dhahayaan cunug meeshaasaan ku degaynaa deg hooyo Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa maanta oo dhan inay leedahay maya hay waryaha dhicin xagga lugta ha u qaadin ha hadlin ha yeelin ha qaylin waxa weeye marka cunugii qofkii marka xataa annagoo waaweyn fiiri ma annagu marka xataa dadkayga waaweyn marka isku nimaadno qof walba wuxuu rabaa asagu inuu hadlo rabaa qof hadal ka sugan male because waa dad la abiyuusay oo la yiri ma hadli kartid marka yaryaraayeen qofka markuu wanaado xoog buu yeesho wuxuu rabaa asagu inuu qabsado meesha dhan hadlo intii tabartaysa marka arrintaas ayaa jirta waxaan leeyahay horta bahalkii markii aan hadlaayana ma aha waxa aan ugu soo alifaayo nacam waa alifaayo horta maskaxdayda way yara degan tahay laakiin waa soo bartay arrintan iskool baan u soo galay waan soo bartay ilmaha sida loo xanaaneeyo anigu ciyaalan taan yaabay ilmihii ka yaabay wadankii ka yaaban waxaan u galay iskool sida ilmaha loo koriyo ama waayda ilmuhu saan u yihiin runtii marka waxyaabo badan aan soo bartay marka hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabbayaasha Soomaaliyeed guryaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay horta xasilooni waa inay helaan waa in guriga la isku dayaa in ilmuhu xasilooni helaan waa in la isku dayaa ilmuhu inay maxay haytay wax ka baleenka wax ka sameeyaan cunugaaga miiska la soo fariiso waxa leedahay gabar yahay ama wiil yahow ama gabdho yahow ama wiilal yahow sidana u noolnahay maxaa rabtaa inaad ku noolaataan ilmuhu waa dad gaagaaban hadda kor waxaan baxshay ilmuhu waa gaagaaban yihiin maahane waa dad ba naga caqli badan waxa laga yaabaa arrin adigu aadan fahanteen inuu cunugu fahmo waxa laga cunugu inuu caqli badan yahay waxa laga cunugu inuu asagu wax sida u noolan la inuu samaysan karo laakiin adigu aad diidan tahay hadda tira cunuga guys soo fariista gurigana ku noolnahay wax barasha leen ka rabaa cunta leen ka rabaa maxay ahayd nolol baa leen ka rabaa waalid baa indhalo inaa hadhow wax siisaan baa leen ka rabaa noloshiina baa rabaa iskuulka inaa barataan baa leen ka rabaa inaa iskuulkiini maxay ahayd guriga home work ku samaysaan baa la rabaa haye just waxbaan wada qoranayna aniga adigu sharci baan wada dhiganayna guriga inuu sharci ka jiraa cunugu inuu sharciga wax ka sameeyaa waa inuu sharciga wax ka saxiixaa cunugu berri hadduu guriga wax ka saxiixa asagoo sharciga wax ka sameeyo way adag tahay hadhow inuu diido waad leedahay guys fiirso wixii aad qorato gacantaada ku qoratay okay qofku waxa weeye wuu samaynayaa ha u malayna in cunugu caqli yar yahay ha u malayna wuu og yahay wax kasta laakiin markaad leedahay isaa samaynin cunugu waxaa laga yaabaa inuu saacad filim fiirsanaayo filimkii waxa weeye ilmaha haddaad tiraahdo okay filimka saacaddii la damin lahaa waay haddaad tiraa cunuga oo usii sheegtayno laakiin lagama yaabo ilmuhu isla marka inay fahmaan wixii aad tiri laakiin way og yihiino balse waxay rabaan waxaas inay fiirsadaan waxaad leedahay adigu cunuga dhegayso filimka intaas markuu kuu dhammaado ka baxa marka waa inaad jaanis siiso cunugu markuu filimku dhammaysto inuu ka soo baxo laakiin haddaad maanta oo dhan 10 jeer ku qayliso waxaa kaloo jira waxaa laga yaabaa cunug baad waxaad dhahaysaa waxaas hooyada baad tiri waxaas 10 jeer bay ku soo celinaysaa cunugu waxa laga wixii inuu ka fakarayo wali uusan maaragtay uu ka fakarayo intii cunugu fakarkii ku jiray baad 10 jeer hadalka ku soo celisay maanta waxaad tiri waxaas kuma siinayo cunuga waxaas wariyaa kuma siinayo waxaas kuma yeelayo haddaa saa samaysa wallahi inaan saa kuu yeelin ma heli doonto waxaas car aan ku siiyo isla saacadii wax yar daqiiqada ka bacdi cunuga ha hooyo waa iska hoo marka waalidka waxaan kula talinayaa ilmaha haddaad tiraahdo waxaas kuma siinaayo waa inaa uga dhabaysaa ama ha ooyo ama ha qaracmo ama ha qayliyo warkaaga waa inuu jiraa balse haddii warkaaga uusa jirin cunug waxba kaama dhagaysanayo mid kaleeto waxaa jirta odagii habartii kasoo qaad odaga maanta wuxuu dhahay waxaas kuma yeelaayo ha ka dhaadhihin wiilka saas ama gabadha hadhihin waxaas haw sheegna ka daa hay cunugii uu raacaa marka ya habarta maanta waxay dhahaysaa wariyaha saas daan kuu yeel odagu wuxuu leeyahay maya maxaa muran ayagii baa ku dhex murmaya ilmihii muran bay meesha ka taagayaan cunug waa ka dhex faa'iidaysanaya mararka qaarkood wuxuu leeyahay abi hooyo been ba sheegay aniga maxaa wayda aan u sameynaa waxaas marka ilmaha beenta
been kama wada laakiin waxaan ka wadaa wixii aad tirahdaan kuma siinaayo ha siinina wixii aad tiraan waa ku siinayaana siiya maxay ahayd warkana gurigayahana qaylada ha laga daayo hooyada telefoonka iska qabsanaysa ama cunuga wax kaas waa sii qayliya maanta markaad adigu telefoonku qaylayso ama aad qayliyayso asna wuu qayliya uu ka faa'iidaysana marka walaalayaal waxaan kusoo gabagabeynayaa ilmuhu ma xuma kulleyba haddii xataa ay kuwo ay si anagu aan rabin wax u dhigaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay aan ugu mahadino wix kuwii naga dhintana kulley ilaahay baa naga ceshaday oo isdila waana wax qoran oo dhici lahaa samirka ha la badiyo systemkana ha la hagaajiyo guryaha systemka ha la hagaajiyo walaalayaal ilmaha tirada badan oo maaragtay idnan maaragtay haddii aynan ilmaha haynayn oo aabuhu ka tegi doono ama hooyadu dabcan odagu markuu ilmihii ka tago ilmihii badan yihiin hooyadana stress baa qaadaysaa familo dhan waxaan naqaanaa odagiina iska tegay islaantiina iska xanuunsatay marka walaalayaal stresska badan iyo qaylada badan iyo rafaadka badan iyo dhalowga badan iyo uurka badan iyo umusha iyo walaca iyo adigiyo lagu leeyahay shaqayso wallahi caadi maaha arrimuhu marka waxaan leeyahay walaalayaal sidaasay nabadgelyo barnaamijkayga maanta wuxuu ku saabsanaa familada walaalaha Soomaaliyeed oo anugu aan ka mid ahay ma ahan aanu iska saarayo ma ahan marka aad iyo aad baan ku mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabadgelyo nooli kulanta walaalayaal subscribe gambaleel like iyo share dee barnaamijyadu ha noo socdeen walaalayaal والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته